بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكتابك الواجبات المتحتمات وعن كسو جرنا بابك شروط لا إله إلا الله وعن سوق هذا نشر كواد العلم بمعناها نفيا وإثباتا إن علم اللي معنى هذا وحي ديديسو iyo waxay sugayso ninkan macnaheeda garanay muslim maaha macnaha kuma islaamayo daliil yaqiin yaqiintii oo daliilka labaad maadaama shardiga labaad uu yahay yaqiin qowlullaahi tacaala alla wuxuu yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu waxaa weeye aladiina kuwii aamanuu billaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa si dhaba u rumeeyey uma intaa kadibna lam yartaabu aan shakin rumayntooda aan ka shakin waddada xaqa inay haystaan wajaahaduu ku dagaalamay biamwaalihim wa anfusihim maalkooda iyo naftooda ku dagaalamay fii sabiili illaahi ilaahay dartii ulaa'ika hum usaadiquuna kuwaas waa kuwa runta sheegay baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala muminiinta alla muxuu kusoo koobay maxsuur inama almuminu muminiintu waxaa un weeye kuwa alla iyo rasuulkiisa inta rumeeyey rumayntoodii aan shakin yacni yaqiiniyey xaqiiqda ka run sheegay waa dhab u rumeeyey fashtarata alla wuxuu ku shardiyeeyey fii sidqi iimaanihim billaahi wa rasuulihi runta run ahaanshaha ama xaqiiq dhabnimada ilaah iyo rasuulkiisa inay rumeeyeen wuxuu shardi uga dhigoo ku caddeeyey kownahum inay yihiin lam yartaabuu inaanay shakin ay waxaa laga wadaa lam yashukuu ma aanay shakin waddadana xaq ma tahay iyo maaha way rumeeyeen naf iyo maalna waa hureen waxay yaqiiniyeen ay laa macbuuda bixaqin ila allah ilaahay oo la rumeeyo waa ilaahay oo cibaadada loo gaar yeelo marka iimaanka la tirinaya an tu'mina billaahi wa rasuulihi wa kutubihi la leeyahay wa malaa'ikatihi la leeyahay an tu'mina billaahi biwujuudi illaahi maaha ilaahay waa jiraa subxaanahu wa tacaala lagama wado iimaanka marka laga hadlayo an tu'mina billaahi an tacbud allaha waxdahu bilaa shariik waa ina alla keliya caabudood inkirto ilaah kaloo la caabudo inuusan jirin macbuud kale ee jiritaanka hadday tahay abujahalba muslim buu noqon lahaa lagu qira ilaahay inuu jiro adduunkana iska leeyahay weliba kacbada beyt ilaahay inay tahay bay yaqaaneen marka ilaahay bay rumeeyeen waa maxay ilaahay bay waxideen nebigana waa raaceen mana aanay shakin inay waddo xaqa haystaan kamaanay shakin fa ama almurtaab qofka shakiyey baa la yidhi fa huwa min almunaafiqiina waa munaafiqiinta munaafiqu kuma qanacsana waddadan uu qaaday ama dad buu kaga dayday ama lafihiisu u baqay oo naftiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisu u baqay wax un kaluu ku qanacsan yahay kuma qanacsana islaamnimada laakiin daahirka muxuu sheegtaa towxiid munaafiqu mushrik bannaan yaalla maa ilaah keyrkii oo soo baryaya lama arkayo daaquud soo adeecaya lama arkayo shareecadii ilaahay buu ku faanaya inuu raacsan yahay towxiidka inuu raacsan yahay iska dhigaya laakiin qalbigu wax ka diidan yahay maxaa dhacay ma ku qanacsana islaamnimada kuma qanacsana munaafiq baa la yidhaahdaa marka waa gaal qarsoon weye laakiin daahirkiisa muslim buu noo yahay waana ka ciqaab badan yahay gaalada kale sida allaba yiri ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaari walan tajida lahum nasiira munaafiqiintu meesha ugu hooseysay ka leeyihiin naarta cid u gargaaraysana heli maysid munaafiq marka waa nin islaamnimo sheegtay laakiin gaal ah uurka gaal baa la yidhaha somalia marka laga dhigo uurka gaal guduhu gaal ka yahay waxaan fahmi kara marka dadka indheer garadka aqoonta le iimaankoodu sarreeyo ama saalixiinta way fahmaan nifaaqa laalaabkiisa way fahmaan maxaa yeele waa beenlow waa khaa'in waa xaasid waa dad muminiintu necab yahay gaaladu jecel yahay laakiin daahirka bilcagsi wey muslimiintu xataa jihaadka u raaci jir nebiga la socdeen oo jihaadka u raacayeen caleyhi salaatu wasalaam qof ay magaciisa maqlaanna nebiga ugu necbaayeen bal ka war marka waa shakiyeen shakigaasoo kufaar wey kufaar munaafiqiin wey wa min asunati sunnada xaggeedana waxaa daliil u ah yaqiintan alxadiidu thaabit fi saxiix can abi hurayrata xadiidka saxiix muslimka ku sugan abu hureyra wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle wuxuu yidhi
ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah nabigaa odhanaya mid xaq lagu caabudo inuusan jirin macbuud la caabudo xaq lagu caabudo inuusan jirin alla mooye wa annii rasuulullaahi ana rasuul ilaahay inaan ahay baan qirayaa laa yalqa allaaha alla kulama kulma bihimaa labadan arrimood qofkii asagoo wata cabdun addoon hayra shaakin fiihima aan ka shakisanayn labadaa gudahooda laa ilaaha ila allah iyo muxamedun rasuulullah addoon labadaas wata oo ka run sheegay alla lama kulmo ilaa dakhala aljannata ilaa jannadu gelaya laa yalqa allaha kulama kulmo bihimaa labadoodaas laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah cabdun addoon hayra shaakin fiihima aan ka shakisanayn ilaa dakhala aljanna jannadu gelayaa buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa meesha shardi looga dhigay kownahu lam yashuk inuusan ka shakin waayo hadduusan ka shakin uusan ilaahay caabudin ka war ma shakisana waa yaqiiniyey laa macbuuda bixaqin ila allah laakiin cibaadadii dhan waa iskaga tegey keligeed oo mutaxan oo bilaa cibaadaha janno ma lagu gelaya jannada ilaahay shardi buu ku xiray subxaanahu wa tacaala nebiguna kama wado qofka intuu ashahaato keliyuu janno ku gelaya camal oo dhanna ka guuro oo waxa weeye ilaahay wuxuuna amray salaadii soonkii zakadii xajkii arkaantii islaamka haddaadan wixii oo dhan badan ka gelin waan rumeeyada been bay noqotay maxaa la rabaa camal saalixa oo lagu kabo yani iimaanku qeyb ka yahay marka iimaanka la tacriifinaya waxaa la yidhi waa atasdiiq bilqalbi waliqraar billisaan walcamal biljawaarix taasay ahlu sunnuhu ku fasireen tasdiiq bilqalbi qalbiga inaad ka rumayso carabkana aada uga dhawaaqdo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ficilna aada jismiga ka samayso jawaarixda salaadii oo kale inaad soonto ood gaajooto oo kale zakadii inaad bixiso maalka gacanta ka bixisa waa ficilkii intaasoo iswata aliimaan la yidhaahdaa la tacriifinayay marka jahamiyadu marka maxay ku luntay niman jahamiye la yihahda waxay yidhaahdeen atasdiiq bilqalbi waxdahu yakfi waa indhala-aan wey qalbiga oo laga rumeeyo keliya ku filan nimankaasu fircoon bay islaam u qirayaan marka maxaa fircoon alla wuxuu sheegay inuu qalbiga ka qiray xaqa ka gartay isaga iyo haamaan iyo kuwii la socday alle wuxuu yihi wajaxaduu biha xaqii waa diideen wastayqanatha anfusuhum naftooduna way yaqiinisay muuse inuu xaq yaho rasuul ilaah yahay muslimiin bay ahay may waa diideen inay raacaan bay diideen maxaa loo baahan yahay yaqiin wadata raacid iyo fulin amarkii nabiga iyo ilaahay inaad raacdo wa fii riwaayatin riwaayad kale isla muslima nabigu wuxuu yihi laa yalqa allaha alla kulama kulma bihimaa labadan arrimood waa laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullaahi cabdun addoon hayra shaakin fiihima oo aan ka shakisanayn labada arrimood iyo waxa ku dhex sugan fiihima maxaa laga wadaa laa ilaha illa allahna tawxiidkii waa ku sugan muxamedun rasuulullahna risaaladii ood raacayso ood aadan ka leexanayn midna waa sunnadii midna waa tawxiidkii labada addoon kulama kulma isagoo xambaarsan ilaahay oo fayuxjabu ljanna jannada laga xijaabaya yani jannada lagama xijaabaya laga wada wa can abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyra waxaa kaloo aydan laga wariyey mar kale min xadiidin tawiilin xadiidkii dheeraa nabiga wuxuu ku yihi man laqiita ninkaad la kulanto min waraai hada alxaaiti min waraai dhanka dambe hada alxaaiti gidaarkan ama derbigan dhankiisa dambe qofkaad kula kulanto oo yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allah qiraya mustayqinan ka yaqiinsan biha laa ilaaha ila allahdii min qalbihi qalbigiisa ka yaqiinsan fabashirhu biljannati jannada ugu bishaaree laa ilaha ila allah buu yaqiinsan yahay ilaahay buu waxday nabigana waa raaca dabcan camalkiina la yimid marka yaqiintu waa shardi laakiin yaqiintu raacid bay rabtaa raacidana u tegi doonaa waa shardi laga rabo qofku wuxuu iimaan ku yeelanaya inuu yaqiiniyo an laa macbuuda bixaqin ila allahu waxdah wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam